intaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga hadlay iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam qofta dumarka markii la guursado oo reer ay yeelato waxaa ku xiga qofta dumarka inay hooyo noqoto ilaa mar haddii la guursado oo reer ay yeelato waxaa ku xigo inay markii kale haddana caruur ay imaadaan oo waalid ay noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana kaga mahran ayadoo waalid haddana uu ka hadlay ilaah wuxuu leeyahay wasayna al-insaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin insaanka waxaan u dardaaranay labadiis waalid inuu wanaag u sameeyo ilaahay wuxuu xusay uu qiimeeyo dumarkuu leeyahay hooyooyinka xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin insaanka waxaa xambaaray hooyadiisa taagdaro iyo daciifnimo oo haddana daciifnimo loo geeyey ayadoo koobi taagdarneed oo daciif iska ahayd haddana culeys ayaa kore ayaa fuulay haddana taagdarnimo ay kusii darsatay sidoo kale ilaahi subxaanahu wa taala wuxuu leeyahay wawasayna al-insaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu kurhan wawadacathu kurha insaanka waxaan u dardaaranay labadiis waalid inuu samafal u sameeyo ixsaan u sameeyo hooyadiisi way xambaartay ayadoo dhibsanayso wayna dejisay ayadoo dhibsanayso marka insaanka la xasuusina waxaa laleeyahay war hooyadii kugu soo dhibootay oo kusoo xifdisay oo kusoo ilaalisay oo dhibaatas dhan kugu soo martay war insaanow war bini aadamo wanaag u sameeyo hooyadaada oo ka warqab nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey rasuulka ilaahayow dadka keebaa uga xaq badan inaan wanaajiyo wanaag kula dhaqmo oo saaxiib wanaagsan aan ka dhigta keebaa uga xaq badan nabigu wuxuu yidhi ummuka hooyadaada 3 jeer markuu yidhi ummuka kadib wuxuu yidhi abuuka uma abuuka kadib aabahaada ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka qiimeen iyo sharfid uu sharfayo rasuulkiisa hooyooyinka waxaa la siiyey 3 darajo ayaa la siiyey kadib baa aabaha loo dambaysiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale qof baa u imaaday isagoo ka idan dalbanaya jihaadka inuu jihaad aado markaas wuxuu ku yidhi nabiga war waalidkaaga ma nool yahay wuxuu yidhi haa waxaa yidhi ord ayaga samafal u sameeyo oo ayaga ku jihaad oo ayaga samafalkooda wanaagooda oo jihaad uu yahay wey sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu raali ka yahay uu raali uu noqdaa labada waalid markay raali ay noqdaan sidoo kale ilaahay wuxuu caroodaa uu xanaaqaa labada waalid markay ay xanaaqeen ay caroodaan oo samafal aan loo sameyn wanaag aan loo sameyn ixsaan aan loo sameyn markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arko waalidkan ay caroodaan ilaahay wuu ka caroodaa wuu ka xanaaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas uguma taginoo xitaa markay da ay gaaraan waalidiinta in loo samafal ayuu ka hadlay oo hooyada markay da ay gaarto ay u baahan tahay in la garab qabto ay u baahan tahay in laga warqabo ay u baahan tahay in la ilaaliyo ay u baahan tahay in la xifdiyo ay u baahan tahay shay walba in loo qabto hooyada oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ka hadla uu leeyahay imaa yablughanna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa labada waalid markay da gaaraan agtaada oo wanaag ay kaa rabaan inaad u samafal ay kaa rabaan ilahi wuxuu leeyahay falaa taqul lahumaa uffin or uf ha ku dhihinoo u naxariiso walaa tanharhumaa sidoo kale ha guulguulin waqul lahumaa qowlan kariima hadal wanaagsan ku dhah hooyada markay da ay gaarto waxaa la doona in la qiimeeyo la sharfo hadal wanaagsan hadal jinacsan lagula hadlo la qiimeeyo la sharfayo ka hadlaya ayuu doonaya islaamka oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uuna baraya sidoo kale ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlay markay geeriyooto oo aakharna ay tagto abaalka ay leedahay iyo jannada ay leedahay ayuu ka hadlay ilaahi subxaanahu wa taala wuxuu leeyahay man camila saalixan min dakarin aw unthaa qofkii wanaag soo sameeyey khayr soo sameeyey ama qof ragga ahaada ama dumar ahaada falanuxyiyannahu xayaatan tayiba nolol wanaagsan ayaan ku noolaysiinaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala xitaa wuxuu ka hadlay markay aakhiro ay tagto nolosha ay leedahay waxaa u sugnaaday janno waxa barwaaqa waxa suga ayuu ka hadlay marka rabbi subxaanahu wa tacaala qofta dumarka nolosheeda dhan buu ka hadlay waxna muusan ka tagin bilowgeeda iyo abuurkeeda iyo barbaarinteeda iyo in la maxaa la jira xubnaheeda ayuu ka hadlay in maxaa la jira markay qaangaartay la guursay ayuu ka hadlay haddii la guursado oo marwo ay noqotana xaqa ay leedahay wanaaga ay leedahay samafalka ayuu ka hadlay markay hooyo ay noqotana waxay leedahay ayuu ka hadlay iyo wanaaga samafalka xitaa markay ay geeriyootana wuxuu ka hadlay ilaahi subxaanahu wa tacaala wanaaga ay leedahay iyo meesha ay u dambeyso marka waa qiimeyn ilaahi subxaanahu wa tacaala dumarka uu qiimeynayo
intaas dhan oo la doonaa inaan sharafno aan qiimeyno ayadoo intaas dhan dumarku uu qiimay rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa qof aan muslim ahayn mu'min ahayn diinka islaamka waxaan ka aqoon wuxuu ku leeyahay islaamka yani dumarku wuu dulmiyaa ma ixtiraamo xuquuqdooda laga qaatay saas weeye xuquuqda dumarkan u doodaynaa xuquuqul insaanka u doodaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba muusan kaga tagin dumarka xaqooda dhan wuu siiyey wuu qiimeeyey wuu sharfay saas darteed la doonay marka inaan qiimeyno aan sharafno sidoo kale aan ogaano in ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka uu qiimeeyey intaasuna ugu baxaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu